haddaan degmadan xaalkeeda warbixin ka bixiyo waxa weeye horta waa la iska nabad qabaa nabadda guud waa la hayaa laakiin xagga horumarka wax badan baa dhiman xafiis malihin ay mataqaanaa local government house-kii gurigii dowladda hoose ma jiro saldhig boolisna ma jiro kaabayaashii dowladdu markay maqan yihiin dhibaata waxaa soo wajahaysa xagga cashuuraha iyo shaqadiiba haddii wax kaa hor yimaadaan wixii aad ku fulinaysa ma imaayaan muddadaad xilka haysay waxyaabihii kugu qabsoomay eed ka maamul ahaan aad hilgelisay maxaa ka mid ah waxaa ka mid a muddadan xilka hayo oo 8 bilood ay joogo waxaa qabsoomay xagga waxbarashada wax badan baan ka qabanay informal education-ka iyo non formal education-kaba wax badan baan nooga qabsoomay waxbarashada dadka waaweyn hay'ad Toston la yiraahdo ayaa naga caawisa oo dumarka iyo mataqaanaa ay dadka waaweyn uga faa'iideystaan waxbarashada habeenkii bay dhigtaan dugsiga hoose dhexe oo markii hore deer aan lahayn na deer baa aan la noo dhisay waxaa dhistay hay'adda Safe Children ayaa noo dhistay secondary uu fiican yahay qurbajooga iyo mataqaanaa dad qurbajooga reer boon ka mid ayaa caawiya uu shaqeeyaa ilaa form 4 buu maraya xagga waxbarashadu si fiican bay noogu qabsoontay xagga caafimaadkana waa wax badan MCH-kii baa iska jira xaggaasna waa guul weeyaan haddaan taa caafimaadka ku soo noqdo degmadu ma leedahay wax dhakhtar ama patient-ka la jiifiyo ma lihin meel patient la jiifiyo magaaladu way weynaato way ballaaratay waxay u baahan tahay Jarna Hospital inay hesho waxa kale u baahan tahay ambulance hooyada ay fool ku qabato far area meelaha fogfog gaari lagu doono loo baahan yahay gaarigaasi kan degmada ay anagu wato yaan u diri jiray hadda inkastoo isagoo iga yar xun yahay oo in aan hagaajino ama isku dayno dhawaan ambulance baan u baahanahay Jarna Hospital baan baahnay meel dadka bukaankii la jiifiyo waxa ku yaala magaalada in hal MCH oo ka kooban qolalkii daawada iyo hal qol oo umulisada ah marka waxaan u baahanahay hospital in la helo marka waxaan ka codsanaynaa hay'adaha wax caawiya iyo beesha caalamkaba iyo khaasatan qurbajooga reer boon dalalka daafihiisa ku kala nool inay dadkooda soo caawiyaan oo ay mataqaanaa dhakhtarka u sameeyaan مثلا haddii hooyo uur leh foole qabato halka ugu dhow ee dhakhtar waalkii halka ugu dhow waxa weeye MCH-ka boon la keeno haddii wax laga qaban kari waayo in buur ma la geeyo buur ma lagu dhow xagga biyaha iyaga ka war xagga biyaha biyuhu way fiican yihiin inkastoo ay bariyoora aftoox meel la yiraahdo laga soo dhaabin jiray way soo dhawaadeen magaalada dhexdeeda waxay leedahay laba kiyos oo dadku ay ka tira bateen oo dadku way soo barakaceen dad ADB badan interior displacement badan baa jiro oo markay abaaro badan dalka ku dhaceen dad badan baa mataqaanaa ay soo barakacay magaalada kasaafatu sukaanka iyo siyaadi marka dibadda ku hayaan oo kaariyoonihi waxan bay ka soo dhawaadeen in biyo gelin magaalada lagu sameeyo ayaan aad u jecel lahay oo mataqaanaa ay hay'ado badan oo ballan qaadeen oo ifadoo kale waxay ballan qaadeen in biyo gelin sameyn doonto waana sugaynaa insha Allah ka maamul ahaan aad waxa tahay mas'uulkii u sareeyay degmada cashuurta intii waan wadnaa mataqaan magaalada dhexdeeda ahayd daily collection ka ahayd iyo xagga istabta waa wadnaa structure-kii mataqaanaa cashuuraha waan dejinay waxaan doonaynaa oo kale registration inaan u sameeyno magaalada guri kaste inaan register garayno iyo jaga kaste inuu qofkii lahaa oo diiwaan gashado iminka ku talaabsanaynaa xagga beeraha cashuurtii beeraha iminkan iyadana bilaabaynaa waxa weeye degmadani waxay ay mataqaanaa leedahay ilaa 1700 oo beerood oo beerbiyood iyo beer roobaad isugu jira
markii hore abaar bay ahayd oo dadku way iska liiteen hadda waxaan rabnaa inaan roobku waa daayimka inta dhulku qoyan yahay dadku iska degan yihiin deegaanka hoos yimaada waa degmo aad u ballaaran waxaa hoos yimaada weeraar dhagax madow xalimaale gargoore oo laba loo qaybiyo gargoore 1 iyo gargoore 2 la yiraahdo qorijab mataqaana ceel baxay misile labada abasaha sare iyo abasaha hoose degmo aad u ballaaran weeyaan oo mataqaana aad u kala fog oo population badan oo ku nool yahay degmada baan haystaas waa kaas weeyaan xagga cashuur ay ka socon leeyihiin qofkii dambi galaba dee lagu xidhi lahaa ma laha degmada boon waa meel taariikhi ah oo taariikhdeedu aad u dheer tahay waa meeshii iskaa uu ku qabsado ay ka soo bilaabantay Soomaaliya haddana nasiib darro iyadoo sidaas dhul iminka degmooyin lagu sheego ama tuulooyin ayay waxaa soo dhakasi anagu malihin hadda laakiin waxaan ku rajaynahay in la noodiso xukuumadda cusubna waan ka codsanaynaa waxaan ka codsanaynaa xukuumadda cusub iyo hay'adaha caalamiga iyo qurbajoogga inay xarumaha dhisaan adoo maanta qurbajoogga reer boon waxaan leeyahay horta qurbajoog aad u fara badan bay leedahay boon oo adduunyada daafiyada kala jooga waxaan leeyahay soo xasuusta dadkiinii iyo degmadii aad ka tagteen oo $1 meelaha ka yeelay wuxuu ku soo celiyay xaga yani lagu horumariyo arrimaha bulshada sida caafimaadka waxbarashada mataqaanaa toon banaanka magaalada toon banaan male wada la'aan baan haysa waxaan u baahanahay iminka waxaan doonayaa aniga ay qorsheysan inaan sanduuq sameeyo qurbajoogga iyo dadka reer Boomba ay ku midaysan yihiin qofkii $1 helaya halka $1 ku guulaysan dariiqyada magaalada ugu banaan oo dhinac walba 5 kilomitir aan ugu saarno magaalada Boomba waxay tahay waa second town in Awdal magaalada Awdal marka laga hadlayo magaalada labaad ee Buurma soo raacda iminka aad buu fiday laakiin kaasi waxa gudoomiyaha degmada Boon oo maran xafiiskiisa ku booqanay ka warbixinaya degmada Boon ee gudoomiyaha mahadsantahay